waxaan barnaamijkaygaan ugu hadlayaa hoggaanka wanaagsan iyo hoggaanka xun waxa ay ku kala duwan yihiin haddaan tusaale iyo calaamado u soo qaato siciidani maamulka Puntland iyo dad iyo deegaan kala tagsan kala qaybsan kala firirsan wuxuu ku guuleystay inuu dadka mideeyo maamulkiina dhameystiro maamul midaysan deegaan midaysan dal ballaaran ayaa loo dhiibay intaasoo sano soo jiray 25 jirsaday halka oo ninka maanta maamul cusub ka yaglalay firdhiya ninka wuxuu sameeyay maamulkii gaamiro ee weynaaday inuu kala diro inuu dadkii iyo deegaankii kala qaybiyo wuxuu kala qaybiyay dadkiisii wuxuu gaaray in xildhibaanadii iyo boqoradii ay xamar ku sugan yihiin maanta oo halkaas ay u baxsadeen wuxuu marayaa in dhalinyaradii ay wada tahriibeen in shacabkii ay gaajo iyo dhaqaale xumo ka wada cabanayaan in deegaanadii ay maanta daacish wada hareereeyeen wuxuu gaaray in dalal ajnabi ah ay kheyraad